Mareykanka ayaa saaka qaaday weeraro cusub oo ka dhan ah Iiraan, iyadoo wararku sheegayaan in duqeymaha la fuliyay tan iyo xalay ay yihiin kuwii ugu ballaarnaa tan iyo markii la gaaray is-afgaradkii lagu hakiyay weeraradii hore. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weeraradan ay jawaab u yihiin weeraro ay ku eedeysay Iiraan inay ku qaaday maraakiib ganacsi oo marayay marinka Hormuz. Dhankeeda, Iiraan ayaa sii waday weeraro ay ku beegsanayso saldhigyada Mareykanka ee Bariga Dhexe. Weeraro ayaa laga soo sheegayaa saldhigyada ku yaala Bahrayn iyo Kuwait. Warbaahinta Al Jazeera ayaa ka soo xigtay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan inay ku burburiyeen 85 saldhigyo iyo xarumo militari oo Mareykanku ku leeyahay Bahrayn iyo Kuwait. Hase yeeshee, sheegashadan weli si madax bannaan looma xaqiijin. Dowladda Bahrayn iyo Kuwait ayaa dhankooda xaqiijiyay in dhulkooda ay ka dhaceen weeraro loo adeegsaday gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska, balse ma aysan xaqiijin khasaaraha ay Iiraan sheegatay. Dhanka kale, taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inay tan iyo xalay duqeeyeen in ka badan 80 bartilmaamood oo ku yaala gudaha Iiraan. Warbaahinta dowladda Iiraan iyaduna sheegatay in inta badan goobaha la duqeeyay ay ahaayeen goobo rayid ah oo ay ku jiraan dekedo kalluumeysi iyo munaarado isgaarsiineed. Waxaa kaloo ay sheegtay in dad dhaawacmay loo qaaday isbitaalada kadib weeraro ka dhacay magaalada Izraq. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa haatan maraysa heer aad u sareysa, iyadoo ay sii yaraanayaan rajadii laga qabay heshiisyo rasmi ah oo lagu dejin lahaa colaadda. Inkastoo labada dhinac ay sii wadaan dhaqdhaqaaqyo militari, xaaladda ayaa weli ah mid kacsan, waxaana jirta cabsi laga qabo in isku dhacyadu isku beddelaan dagaal ballaaran haddii aan xal diblomaasiyadeed la helin.